kooxdii labaad ee 10 doomood oo ku socda marinka Gaza si ay u jabiyaan go'doominta halka lagu hayo ayaa u jira xeebaha Gaza wax ka yar 60 mayl wuxuuna dhaqdhaqaaqa noqday mid caalami ah oo soo jiita indhaha dunida oo dhan oo si dhow loola socdo. waxay Israa'iil shalay xirtay boqolaal qof oo la socday doomo qayb ka ah ololaha lagu jabinayo go'doominta Gaza balse halkii laga filayay inay taasi hoos u dhigto dhaqdhaqaaqan wuxuu noqday ficil Israa'iil mid dab ku sii shida. waxaa isku soo baxyo ay ka dhaceen caasimadaha Yurub oo looga soo horjeedo afduubka Israa'iil ay kula kacday doomaha iyo dadkii saarnaa. inta oo kaliya ma ahane ilaa 45 doomood oo hor leh ayaa shalay ka soo dhaqaaqay kaliya hal magaalo oo Turkiga ka tirsan oo lagu magacaabo Hatay. waxayna dadku bilaabeen inay adeegsadaan doomahooda gaarka ah si ay ololaha ugu biiraan. haddaba waa maxay faa'iidada ku jirta haddii marba xilli kasta la qaban karo doomahaas? dhaqdhaqaaqan wuxuu abuuray dareen caalami ah oo indhaha oo dhan ku soo jeediyay xaaladda ay ku jiraan dadka Gaza iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in hadalka laga soo kaco oo laga gudbo ficil. qof kasta ayaa in waalidiin badani ay ka walwalaan haddii ilmahoodu hadalka ka bini'aadanimo ee lagu garab istaagayo dadka Gaza. aan caadiga ahayn ayaa ah ololaha inuu ka dhigay xaaladda Gaza mid aan indhaha laga jeedin karin wuxuuna cadaadis ka dhaliyay caasimadaha galbeedka oo lagu qasbayo inay ka qayb qaataan xaalad kasta oo joojin karta xasuuqa Gaza. waxaa la helay muuqaalo dareen leh markii kabtan Turki ah iyo doon uu waday ay ka baxsadeen ciidanka Israa'iil ayna u jirsadeen dhulka Gaza kaliya 9 mayl. qof reer Gaza ah ayaa muuqaalka ka duubay xeebta isagoo hadallo soo dhaweyn iyo mahadcelin u jeediyay ka hor inta aysan doonta taariikhda samaysay ee Mikino aysan qaban ciidanka Israa'iil. dhaqdhaqaaqan waxaa kaloo uu shirqool dhexda u geliyay Israa'iil. waxaa soo baxay muuqaalkii ugu horeeyay ee dadka ay qabatay Israa'iil oo la socday dooman oo hortooda uu taagan yahay wasiirka xag jirka ah ee amniga Israa'iil Ben-Gvir oo ku eedeynaya inay argagixiso ka tirsan Xamaas yihiin dadka uu hadalkan ku oranayo. waxaa ku jira xildhibaano ka tirsan baarlamaanka midowga Yurub waxayna ku qeylinayeen inuu yahay manaxe dilaha ah oo carruurta iyo dumarka laayo. arrinta ugu muhiimsan ayaa ah in Xamaas ay dareemayso inuu jiro dareen caalami ah oo ka dhan ah Israa'iil. waxaana hadda bilowday warbixintii ugu horeysay oo sheegaya in ururka diidi doona qorshaha uu diyaariyay Donald Trump oo ay carabta soo dhaweeyeen. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo markasta udub dhaxaad u ah isbeddelada ka dhacaya caalamka ayaa shalay waxa uu sheegay isagoo u muuqda inuu dab ku sii shidayo cadaadiska ay reer galbeedka ka wajahayaan xaaladda Gaza. wuxuuna Gaza ku sheegay qabuuraha carruurta halka xiisadan uu sheegay inaan meel kale laga raadin oo loo baahan yahay in la xaqiijiyo xuquuqda reer Falastiin. isagoo yiri haddii aad isku daydaan adduunka inaad kala soc ku samaysaan waxaad shidi doontaan dab aan la damin karin. intaa oo kaliya uguma aamusin ee waxa uu ku daray adduunka si xawli ah ayuu isu bedbedelayaa taasina waa khatar. waa inaan isu diyaarino dhammaan suurtagalnimada. haddaba maxaan u soo qaadanay Ruushka?
ruushka wuxuu la kulmayaa cadaadiska reer galbeedka marxalad kasta oo ka dhan ah iyaga wuxuu u arkaa fursad uu ku dhantaali karo waa meel uusan sidoo kale ka maqnayn Shiinaha. waxayna labadan dal doonayaan xaalad kasta oo lagu xanibi karo galbeedka inay baasiin ku shubaan, waxayna dareen caalamiga ah ee ka dhanka ah Israa'iil iyo reer galbeedka ee lagu taageerayo Gaza u adeegsanaya sida qalab ay ku cadaadinayaan Mareykanka iyo reer galbeedka. madaxweynaha FIFA Gianni Infantino ayaa shalay si cad u xaqiijiyay cadaadiska caalamiga ah ee FIFA ay kala kulmayso caalamka, isagoo sheegay in lagu qasbayo Israa'iil laga saaro tartamada caalamiga ah sababo la xiriira dambiyada ay ka galayso Gaza, balse wuxuu u muuqdaa mid aan doonayn in uu si dhaqso ah ugu dhaqdhaqaaqo arrinkaasi. FIFA ma xamili karto ayuu yiri mushkiladda juqraafiga siyaasadeed ee adduunka, laakiin waxaan awood u leenahay in ay horumariso kubadda cagta iyada oo ka faa'iideysanaysa qiimaheeda mideynta waxbarashada dhaqanka iyo bini'aadanimada.